aryaadaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ammaanu uma dhimana mini mar lamaad Soomaaliya dooratay madaxweyne oo shala xilka ku wareejiyana marka uu foogta xilka kala wareegana xumaan iyo samaan wixii uu sameeyaa meel u qotoma la suna qarimaayo waa ogtiinoo kala maan marqaati beena ma furto muga waxaan anigu dhihi lahay xasano beriga wixii ka qaldama wax cudur daara ma lihido xogogaalaad heetahay Cabdullaah madaxweyne farmaajo maanta wuxuu madaxtooyada ku soo dhaweeyay haye afwarkiya cabdikuusow qolada afwarkineed ahayd waa ogahay wuxuu ku soo dhaweeyay madaxweynihii la doortay xasan sheekh maxamuud xafiiskii wareejiyay war xil wareejintii lama gaarine madaxweynaha waxa la soo tustusay qaybaha kala duwan xafiisyada madaxtooyada ariya xasan sheekh madaxtooyada iyo xafiisadeeda kuma cusbee kaloo la soo tusay war xafiisyadii oo ay kursiyada tusoojo walmalka jeedo bangiga lacagdiis ma ilahan tusuway walay ka dambooye war madaxweyne xasan sheekh kadib madaxtooyada waa la sii qurxiyay xafiisyo cusub iyo dhismayaal kalena waa lagu kordhiyay haye cabdikuusow ma kuwa hore la rinjiyay mise dabaqyo dheer baa laga dhisay horta inta badan walan fooldhigi waraawad lagu madaxtooyada rogaga baabuurta ubaxyada iyo kuraasta iyo miisaska cusub waxa la dhigay haddaad aragtaan meel in laga tago loo qorsheeyay ma ahayn war dawlad iyo nidaam baadna waxba ka aqoone dawladnimadu waxay la mid tahay guri la dhisayo maamul kasta oo yimaadna waxbuu ku sii kordhiyaa madaxtooyada inta ka muuqataana waa intaas war dawladnimadu guri la rinjiyay ma ahana 5 sano ka hor markii madaxweyne farmaajo la doortay oo aad waxaraha jirtay filashada dadku waxay ahayd dawlad amniga iyo adeega lagama maarmaanka ah ee bulshada dhamaystirta laakiin xaaladdu meel halis ah ay gaartay maantana filashada dadku waxay maraysaa dawlad dalka qalqalka siyaasadeed ka saarta war kalamaanay gugoo baaqda dayrtoo gab lama gugacna yeeraynin gabaahir cidlaahon lahayn webiye geed fiixa gayigoo abaarsada markii gaajo lala tooxmay garadii irmaaneed markii goojo laga waayey geeloo ugu dulqaad badan markuu ololka goy waayey guuro iyo hayaan lagu tashaday uunkuyow go'ine guulaan u tugnay rabbigii gacanta weynaayey guulaama mirasow markaas gababaxaymayso shamsay ma dhulkii lagu abaarsaday buu roob ka daay aryaadaha Soomaaliya lama abaarooda waayahan haysay midu abaar siyaasadeeday ahayd miduna abaar roob la'aaneeday ahayd muga shamsay midda gababaxayso aad noo sheegayso waa tuma war horta abaartii siyaasadeed doorashada soo afjartay gayiga Soomaaliyana meelo badan roobkii gugu ka daay war ra'iisul wasaare Rooble inuu doorasho dalka ka hirgeliyo inuu ku guuleystay muran kama taagna waaya cabdikuusow maxaad muran ka qabtaa waraawil gubguusha waxa iskale madaxweyne farmaajo 2 bilood buu ra'iisul wasaare Rooble soo xulahayay si uu dalka doorasho ooga qabto wuuna ku guuleystay war qaranow madaxweyne farmaajo ma kula qaba arintaas war madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashada inuu ku guuleystay muran kama taagna CBB-na waxay leeyihiin mudaxileedkiisa waxa ka dhiman 3 sano 12 bilood iyo 28 maalmood war CBB haday waqti tiris bilaabeen doorashada soo socota waxay heli doonaan 15 Cabdiraxmaan Cabdishakuur helay oo kale sababtoo ah saa calculator-kan wada jiray madaxdana muddada u xisaabi jiray warnamiyo CBB hadii waqti tiris bilaaween sanad iyo barkii oo ka darsadeen hisaabtiinta jeeyeen war firaaq dastuuri inuu dhaco ayay ka hortagayaan war madaxweyne farmaajo iyo xertiisa waxa uu bilaabanaya 4 sano mucaarad ah doorashada dambe codadka ay heli doonaanna xasan sheekh maxamuud baa go'aamin doona 4 sano soo socota sidoo uu shaqeeyayna ku xiran tahay aryaadaha samigay Cabdullahna waxa uu yiri waa sheela moorto 5 sano shacabku ka shalay qaabeen waa sheela moorto 5 sano shacabku ka shalay qaabeen Cabdullaah aniin shiribka hore ka suusay waliba ay jirtay wax taagay la ma tiigsaade timaadada la toosiha warmadeeyow nin reer Hargeysa Cali Ilayya la yiraa oo asna shirbay wuxuu yiri safarka dawla waa socdaa jidkii saxnaana saaka raac war Soomaaliland wala aqoonsaday miyuu leeyahay war doorma shiribkii bay dhaba iyo Hargeysa u gacan galay waraw lagu war ma haysaane midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland waa soo dhawaatay sababtoo ah Muqdisho 15 May baa lagu xusi Hargeysana 18 May baa lagu xusaa war isbedelkiisa waxa miyaa asaas keenay war Soomaaliland dawlad iskeedu taagan weeye maadinka dhiiqa lagu hawgelinaya war Faysal Cali Waraabe wuxuu ku yiri doorashadii dhacday intii ka dhamaanaysay waan daawanayay 5 sano la soo dhaafayna ma hurdin war kalamaanay waxa la yiri codka golaha madaxdii dhawaan lagu ciisay qaaday ee ciidda aan leenahay calanka loo dhaarshay ciraabaha murtida waa inay ku cibra qaataan kuwa ceebta nala doonaya cabaya dhiigeena milgahana xarjaameynaya calanka shaasheeya sharbay jeel
xiriiriya galaan waa cilaan bixine waana cadaaladoo qura waxaan kaga cadgoynaaye ku camira carrada gobanimaan calabsanaynaay aryaadhaha war ma haysiina ilmihii eritariya la geeya ee meel ay cirib iyo jaan dhigeen la waaya waalidiintooriyaa beriga bannaan baxay waxayna dhaheen madaxweyne xasan sheekh waxaan ka rabnaa inuu raqya ruux ilmihi nooga war keeno war ilmaha madaxweyne xasan sheekh ma qaadine farmaajo noo weydii miday ka wadaan warnimiyo walmooshidin lanki halka dhunta haangorof ee galangiliye waa leeri warmada iyo weligeeda hangalan biyo looga cabay war anigu cabashada dadka waxaan u fahmay xil wareejinta lagu daro faylkii carruurteenna madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashada ka hor waraysi laga qaaday wuxuu ku sheegay haddii uu madaxweyne noqdo mukhtaar roobow inuu soo daynayo sababtoo ah wuxuu yidhi wuu afduuban yahay sharci kuma xidhna afduubkiisana wuxuu caqabad ku noqonayaa al-shabaab inay madax dambe iska soo dhiibto markii la doortay saacado kadibna wuxuu la kulmay halgamaa cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax marka way iska caddahay ilmaha alatariya la geeye xaaladooda inuu wax ka qaban doono war madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulankii u horreeyey maanta wuxuu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada waayahanna madaxweyne iyo maamul goboleedyada wada jira ma shirin war haba la kulmee ma bunjubaama soo ilmo gareen aruushib naga dhe ilmo laaniya ilmo gareenoo dhanow la kulmee horta ilmo gareen ma isdhaqeen waayahan isdhaqidaa socotay war madaxweyne lafta gareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma ka codsaday inuu mukhtaar roobow ku soo daynaynin war anigu waxaan maqlay madaxweyne qoorqoor maalintii doorashada wareeggii koowaad wuxuu taageeray sheekh shariif sheekh axmed oo isla wareeggaas ku hadhay wareeggii labaadna wuxuu taageeray xasan cali khayro isla wareeggaas ku hadhay wareeggii saddexaadna wuxuu taageeray madaxweyne farmaajo isla wareeggaas looga guulaystay marka isdhaqidiisu waxaan u malaynayaa inay wakhti dheer qaadato warwar ma haysiine markii doorashada gudoomiyaha golaha shacabka la qabanayey habeen waa kii taliyaha ciidanka booliska yidhi amniga waa ku filannahay ciidanka booliskaana sugaaya kadibna dad baa markii waxay ku eedaynayeen inaysan dacad ka ahayn xildhibaamaha salaadoo isku dayay inuu taliyaha difaaca wuxuu yidhi taliyaha yaan lagu fogaanin waa nin oday aho wax badan soo shaqeeyo oo mas-uul ah isla habeenkiis taliya xijaar hurda ka soo toosay wuxuu yidhi doorasho in dalka laga qabanayo manala ku wargelin naloomana sheegin amnigeedana mas-uul kama nihin kadibna dad badan ayaa maha salaad eedeeyo dhaheen waa kaas ninkii asna wuxuu ku soo jawaabay iga raalli hada nimaan booyadu dhaqi karin ayaan baaldi kula soo orday horta yuu cali waa kii dhahayay madaxtooyadan jiraa berri galab haddii lacala lay waaye xagguu ku dambeeyey hal cod u helayaan maqlay mahal codaafilada lagu tagaa war intii ololaha kaambeynku socday wax badanaa dhacay brofesor cabdiraxmaan ablaal oo la yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur u tanaasul wuxuu yidhi ma tanaasulayo baarlamaanka dhanina waa ardadaydii dalka inaan hogaamiyaanna rabaa laakiin markii la codeeyey ardadiisii waa laga waayey hoolka warwar ma haysiin dhacdooyinka doorashada laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ah hal gurub oo wareeggii koowaad la sheegay inay u codeeyeen madaxweyne farmaajo sheekh shariif iyo xasan cali khayre wareeggii labaadna waxay u codeeyeenaa la yidhi madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre haye laba madaxweyne miyay ka rabeen war siyaasadda ma taqaaniine waxay ka rabeenaa la yidhi xasan sheekh inay labada wareegba ka reebaan war weligeedba waxaa la yidhaah guushu waa dad badan tahay guuldarraduna waa agoon marka haddeeray socotaa fahdaanna qayaamay iyo farmaaja istiraatiijiyad xumaa war xildhibaanada qaraabka loo diido madaxtooyada la seexiyey istilaabay ku codeeyeenaa la yidhi qaraabkii haddii naloo qoonsaday oo dadkii baan qaldaynaa miyaa ka dhacday war waxaa la yidhi damac dhaafe hadkiisu dhugmadiisa garaadka qofka waa ka dhunshaaye dhalanteed iyo been iyo iska dhaan dabagaallana waa ku dhiiri gelshaaye dhagaha kooxdii la ayadoo ayaantaan dhaqsanaysay ma ka dheelliye awrkii